داود الكسر دواد برنامج كيني راتراع تاريخه وأنا كسر قادنا هذا مسؤولين أنا بدنا إن تاريخ بدر كهاي وضنك يسيل وصا أساسي سومالي لان وحنمان تمرتين وقع برنامج كينا راتراع تاريخه حقيقة جود يقولها جورتي ده عبد الله إبراهيم حبنه وكم من هالرجي لا أساسي جورتي ده وقتي إتقال السكية كده عن تلك يوقتي وضنك لسوق لي دور ساش كيبه وجوهرين وحنشعل هاي إن حقيقة جود كبلابه بالتاريخ هذا كوبان حقا يرنصو بندك. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي عبد الله إبراهيم حبنه هذا حقيقة يقولها جورتي ده. مركي هراء وحلايتها بري معلمه برايمري سكول كتكسيده هو صدحه مركي دمنا جامعات الله فولايا كنا نقدر وين كسب هاي مركي دمنا وحنا شغال كراي أكاديمية علم باريستا ساينس علم باريستا ورنجري كدبنا وكي أركان روك الشقية هركيزا يقول برودعي 1991 إلا ما أنتنا هؤلاء أم برنا مدين تاعتو أم بهؤلاء دوشيسينتا أم بهؤلاء وحقبت كي جورتي لهم بنقول هجري مركي أسرنا تطلق سوق الشيء 1991 كي بورما أنيقا يلا بني نوكرة نقول نتعلم نرسل عبد الله أحمد كامل بالورنجري أيها هاي كوميتي رئيس مامور كبورما كشا المامور كهير قالوا بورما هو رئيسي شنتي بشي فيبر وريبا waxaan ka bilownay maamul ayaan ka bilownay 1991kii marka ilaa intii shirarkaasi ilaa intii dambe waxaan ka mid ahaa howlahaasi 1992kii ayaan guurtidii boorama la howlgalay gurmadadii nabadda aan ka shaqaynay marka taasi waa intaas waa CV-gayga inta kale waan ku sii daro waxaan intaan halka ka shaqaynayay waxaan jaamacaddan sharciga waan ka baxay kulliyadda sharciga khilaafaadka iyo waan ka baxay iyadana imikana international relation and diplomacy ayaan imikana tiiskayga qoraya marka iska loo xjiidanaya intaana marka bachelor baan half art inta markaan ka imaado taariikhda guurta maxay tahay horta guurta dhaqan ahaan wax weeye dadka Soomaalidu meel kasta ku nool yihiinba ma ilahayn intaan taariikhda ognahay xafiis ka dhaxeeyay iyo maamul ka dhaxeeyay dadka Soomaalida ma jiro hab qabiil bay dadka Soomaalidu u noolaayeen qabiilkana waxa uu talinay duqeyda iyo waxgaradka marka daa looguma talinayne dadka waxgaradka iyo ahaa dadka xalila arrimaha dhacdooyinka amba wixii khilaafaad yimaada amba wixii magaranayay noloshooda maareynta noloshooda dhan wixii la xidhiidha haday dhacdina khilaafaadka haday tahay dhinaca magaranayay wada noolaanshaha haday tahay wax kasta oo noloshooda saameeya horta waxaan laga wada hadlayn ma jirin wada hadal baa lagu dhamaysan jiray waxa la yiraahdaa afka qalaad lagu dhahaa negotiation la yiraahdaa lagu dhamaysanayay yaa lagu wada hadlayay wada hadalkaas arrimaha lagu xaliilanayay oo laga wada hadlayay arrin kasta waxaan laga wada hadli jirin hal qodob baan laga wada hadli jirin qodobkaan laga wada hadli jirin muxuu ahaa inanta heeriga ma taqaanaan heeriga waa inanta guurdoonka meel tagta reeru beel kala u guurdoon tagta cidi kama wada hadlayn cideer qabaa'ilka ka wada hadlasay ma jirin haddii wax la gaarsiiyo waa laga wada hadlayaa amba la dilaan amba la dhibaateeyo laakiin iyada iskaysay waa arrinka kaliya negotiation amba wada hadal aan laga geli jirin weyn laakiin wax kasta oo nolosha la xidhiidha wada hadal baa laga gelayay sida haday tahay oo ay arrimaha gacanta ku hayeen odayaashu mustacmaraadkii baa yimiday dhulka Soomaalida sadda socotaan dadka Soomaalida 5 qaybood bay kala hoos tageen marka qayb waliba maamul gaar ah ayay tagtay inaga dhinacaan waxa la oran jiray protectorate bay ahayd ingiriiskii heshiisyo ilaalin ah ayay la galeen duqeydu oo xeebaha ay kula galeen oo beel loola galay ilaa cid maamulka haysay oo ay tala ka go'aysay amba boqora amba oday amba sultaan oo kelidii dadka u arriminaya ma jirin
deegaan waliba de wuxuu lahaa nidaam iyo duqey gaar ah taasaa markaa magaranaysa heshiisada lagula galay sidii haddii loo noolaa oo sidaa la ahaa dee mustacmaraadkiiba yaa abuuray maamuladii aynu ka dhaxalnay dowladihii markii gumaystayaashu ay naga tageen maamulkii waa maamulan dhaxalnay buu ahaa dhaxalnay guurtii marka la yidhaha haddaba sidaasay taariikhanaydo nolosha dadka waxaa lagu maareynayay arrin wadatashi ah oo ah waxgaradka the wisdom waxa la yidhaahdo ma ahayn da oo qofkaasaa ugu da'weyn ma ahayn arrin kasta ciddii garasho u leh ee xirfad u leh ee aqoon u leh ee loo bido inay arrinkaa wax ka odhan karayso xagga daacadnimada xagga kartida xagga garashada ayaa loo xil saari jiray marka haddaba guurtideennani goormay timiday sidayse awoodda ku timiday waxaa horta guurtida in yar baan doonaya halka ka faa'iidaystee dadku waxay u qabaan guurtida in waqtiga dagaalka una abuurantee horta guurtideennan aqalkan guurta la yidhaha amba council of elders waxa la yidhaha amba golaha guurtida horta aasaaskiisa ingiriiska lahaa 1959 ayuu u saaray qoladii halkan haysatay protectorate-ka ahayd ilaalinta inoola joogtay ingiriiska ayaa u xil saaray guddi bay u xil saareen guddiga waxaa ka mid ah allah u naxariistay way dhintay ragga dee kolley maxamed xaajirmaan cigaal baa ka mid ahaa jirde xuseen baa ka mid ahaa committee caynkaasa guddi caynkaasa loo xil saaray waxaa la yidhi ha laga soo tala bixiyo sida loo abuuri karo iyo waxa ay noqonayaan aqalkaasi odayaasha ah iyo magaca ay qaadanayaan markaa magacyadii iyo wixii wax la soo wadaba waxa la yidhi aqalkaasi waa majlisu shuyuukh wax la yidhaha baa laga dhigayaa amba council filters baa laga dhigayaa waxay kala talinayaan advisory inay u noqdaan arrimahaas ay kala taliyaan dhaqanka iyo arrimaha diinta iyo isku xidhka dadka reer guuraaga ah iyo madaniga inay isku xidhaan oo ay xukuumadda iyo sharci dejinta koowaad oo ah dee aqalkii assemblyga baarlamaanka inay isku xidhaan oo kala taliyaan arrimaha khuseeya dhaqanka diinta iyo xidhiidhka muxuu ahay reer guuraaga nasiib darro aqalkaasi wuxuu jiray 2 maalmood oo keliya 25 bishii May iyo 26 bishii May 1960 ayay 2 fadhi yeesheen labadaa fadhi waxaan kuwii ugu horeeyay uguna dambeeyay kolka laga yimaado ujeedada kale ee uu doonayay ingiriisku waxay ahayd inay nimankan dhalinyarta ee baarlamaanka ay dee xukun ku ridaano ingiriisku markii waa kii doonayay inuu sii yar joogo magaranaysaa inaan degdeg ugu biirin marka odayaashu inay amar ku ridaan way taageeraan fikradiisa odayaashina waxay saxeexeen in la isku darsado saxeexeen xagga koonfurta kama jirin aqalkani halkaas uu baabay sidee haddaba uu ku soo kacay weeyaan waxa weeye sidoo ku soo noolaaday waxa weeyaan markastoo dawladnimadu ay naaqusanto awoodda dawladdu ay hoos u dhacdo awoodda odayga ayaa kor u kacday baahidiisa ayaa kor u kacda markii Hargeysa dee ururka SNM soo galay 1988kii wati bishii 13 August ayaa Hargeysa laga saaray SNMta markii laga saaray dee ciidankii ay wateen dee uu naafoobay wax dhintay iyo awood beelay iyo wax magaranayay dee uu yaraaday dadkii waqti qaxootiga la galay harta sheekh iyo xagga la tagay nimankii korneelada ee dagaal gelinayay ciidankii arkeen iyo magaaladii oo laga soo baxay odayaasha la xiriireen oo yiraahdeen xaaladda waa sida odayaashu markaa way isku yeedheen oo beeshan dhexe Abdurrahman bay ku shireen October meelaha 1988 halkaasuu ku samaysmay aqalka odayaasha ee Sheekh Ibrahim Law naxariistay madaxda ka ahaa 88 ilaa 1991kii 91 dalka la soo galay saas ku abuurmay marka isku imaatinkii ugu dambeeyay
ururka SNM shir weynihiisa u dambeeyay Balgubadlo ku yeeshay 1990 ayaa lagu sharciyeeyo leeyay aqalka odayaashu waa aqal dastuuriya wax kale kuma yidin article kale wada guurti is constitutional dadna khilaafaadka ay ka shaqeynayeen recruitmentka way qorayeen dhalinyarta raashinkooga hubkooga abaabulkii wuxuu noqday abaabul markaa odayaashu ay qaybta lixaad kale ka qaataan oo halkan awoodda guurtidu ka timiday horta waa halkaa sidoo kale beelihii kale darafyada iyagana markii xukunkii Siyaad Barre jilcay dagaaladii ay ku jireen waxa abaabulkiisii gacanta ku qabtay duqeyda saasoo kale shiraru yeesheen والله شري برزوق مثلا قنجيت بكو شري isla waqtigaan dibadna iyaguna halkaas ay ku samaysteen odayaashu idna odayaashu ma markii nabadii ururka SNM soo galay halkan iyo labadii duqay umba nabadii isku yimiday idna laga wada hadlay idna nabadu waxay ku bilaabantay is arag wada hadal markii dambana wada maartay kulanku horeeyay wuxuu ahaa in la kulmo oo la ballamo berbera lagu naadiyay in Somaliland dadkii Somaliland ku noolaadeen nabadii dhex marto berbera 27 February 1991 halkaas la isku tagay wax garad iyo siyaasiyiinba halka anaga raawada la danahayn Allah u naxariisteen Ali Faarax Gadiid la oran jiray mid ka raahayo aqoonyahan oo baamistro siyaasiya wala u naxariisteen Muuse Rabiile raacay jaamac Rabiile iyo halka waladeeday ay ku heshay habeenimo oo ku geeriyooday waxaana noogu imanayay markaa oo ay duqeydii saaqan galbeed beeshan dhexe inta galbeed degta ay booramo u imanayeen 28 bishii February shirkii horeeyay ee wada hadal nabadeed lagu galo marka hore arag baa dhacay laakiin wada hadalkii rasmiga ee nabad ee galbeed arrintiisa lagu xalilayay halkaas balantiisu ay 28 February soo hoynayeen xalay oo habeen hore kalena ninkaas lagu dilay arrintu weyn adkayd laakiin waan ku guuleysanay inaan ka dhaadhicino dhalinyartii in nabadu muhiim ay tahay waxa cali u dhintay nabad ahayd shirka halkaas aan ku qabanay meesh hoteelka Harawo kaliya iyo shirka iyo cuntadii seexashadii urdadii fadhigii hoteelkaas waxa dhammaan ku qabanay nabadgelyadana aad baan u adkaynay ilaa 3 Maarch buu socday go'aamo fiican oo nabadda galbeedka lagu dajiyay ayaa halka ka soo baxay oo is arag rasmi ah oo wada hadal ah oo lagu heshiiyay 7 cisho gudahood in la gaarsiiyo baaq nabadeed dadkii iska soo horjeeday bulshadii dagaalamada iska soo horjeeday in nabad la gaarsiiyo 7 oday baa la isku daray 7 markaa wareegay jiidii dagaaladu ka socon jireen oo dhan dadkii wada hadashiyay wixii 7 cisho ka dambeeyana ninkii geeysta dambi in isagu loo raaco oo laga daayo wada jirkii wixii ma garanayay hanti lumay aan ma guurta ahayna in laga samro wixii dhintayna laga samro wixii dhan waxa la isku fuuqsado leeydi aanu talina inta nool sidaas nabadii ma garanayay galbeed ku soo unkuntay xagga bariga isarag guuray wuxuu ka dhacay og 16 bishii February 1991 amba 1991 bishii February 16 Allah u naxariistay Garaad Cabdiqani oo wato duqow wato iyo asarkay ragii korneeladii ee ururada hogaaminayay SNM-ta iyo rag siyaasiyiin baa ayaa halka ku kulmay sida rasmiga ah marka xaqiiqda laga sheego wada hadalkan galbeedka ka dhacay sida rasmiga loo wada hadlay ee arrimihii hore meesha la dhigay waxa la yeelayna la isweydiiyay is araga waxana inoo ka dhacay mijilka waxa jeernimada barigu faqoqan tahay aragtidayda ani wasla laga yaabaa aragti kala duwan laga bixiyo macluumaad kale oo ma garanayay deega qarsoon laga yaabaa in dad hayaan laakiin inta aniga aan ka ogahay laakiin dhinaca warsangeliga iyo habarjaclada warsangeliga
iyo beesha warsangeliga iyo abarjelo bariga ah iyo beesha warsangeli iyo Muuse Ismaaciilka bariga wada hadalla badan iyo dhaxmaray oo nabadda ku saabsan oo marba meel lagu soo shirayay oo la soo wada hadlayay oo aakhirkiina la soo gunaanaday wada hadalka dhinaca beesha dhulbahatay Maxamuud Garaad Bari leeyahay Maxamuud Garaad Bari iyo Muuse Ismaaciilna wuxuu ka dhacayba 1993 ayuu darweyn ka dhacay markii shirka Boorama qabaqaabeen shirka Boorama lagu jiray ay halka tagnayba anagoo bariga ergooyinkiisa raadinayna ayaan shirka suurtagelintiisa iyadoo Allah u naxariistay Suldaan Ciise Xirsiqani oo la socdaan kale daahir warsame wasiirka hore difaaca in agaalo magacaabi jiray Risaan gareyn jiray iminka uu joogaa baan filayaa aw la socdo ay halka ugu tagnay waa ay muddo sugayeen beesha dhulbaatay Maxamuud Garaad ay sugayeen anaguna la saanad baan soo marnay idna anaga isu soo jiidnay halkaasay nabadda u horeysay dhex martay Maxamuud Garaad Bari iyo Muuse Ismaaciilna 93 bishii Febraayo dhammaadkeygii kamay horeyn xogayo xeed waqti aad u adag bay ahayd oo maamulkii dawladnimo meesha ka baxay waxa meesha joogay in jabhado iyo dad kale hubaysan iska soo horjeeday sidee u suuragelisay in odayaasha labada dhinac isku yimaadaan in meel dhexe ama say wada hadli jireen waqtiga telefoonada mu jirin qaabkeed wada xiriir jirteen wallahi waxa weeye xiriirka waxa weeye de urba jiray waay asnama wada sudana hujira samaade maamulkiisu wada silix boode laakiin de maamul baa jiray marka de ciidamada jiray organization baa jiray organization kan ay guurtidan beesha dhaxnada waa isku lafaaqnaayeen ma kala harsanayn rag marka horeba de ay la xidhiid la lahaayna de way jireen oo beelaha kala ka tirsanaa ودي أنا جوا هو يعني عبد الرحمن وعلي يوم هو أي جامع ربيلا با دي حاجة سي مركز اللي جوجين ومركز دمبا هو عبد الرحمن ده أول بوكة ترسناز أول كذا سنة ما جامعنا مركز دمبا وكبيري دي بدنا حيرك هالكاسو كبلوضي حيرك كبلوضي إن مركي أيضا إيمان يسوع مركي عدي ده مقران سي ما ملا هاي ده كل كهرو ده عايزة كبعد ماشي دي حقيقة اللي وجهها حقيقة لو وجهها يو وهو لو وجهها نينا ديدانو ما هين دقال سي صعدو كسوق لنا نبد بدونيا كسي جوغنا نبد بدونيا حيري اتصال بالله ياشي أنا عيدا كيف فديه دلا فديه الله نحرسته ومدحدك قلبيتك محمدك هيبي عمر ما حكا صدني كواد يعني حريرنا أنا حريرني ووراقا اسلافسني أيا وحي يمدي عبد الرحمن وعلي الله نحر يقل بيدي مع عبد الدنبيل وحق الله فايسك يمدي ينو يمدي عبد الرحمن مركا حيرك شي كلكا ستوس انتو وديالك حايس دلي و تغي marka ka saaxiid ka warri hulka ka foom garoobay anagu se itisaal umbaan saw sadde toos buu tago sagu waragiisi si toos ugu tagay marka halkaas ay startankii bilowgii nabadda kolkaas aragii duqeydina tulli buu ka dhacayo saas ahayd xaqana tigar abdiqani waaki asnamta ugu tagay bilagubadle ugu tagay marka xiriir bay lahaayeen marka xiriiradu saas oo bilowdeen xiriiradii markaas xoojintoodii iyo si ambaqaadkoogina de shirarkaas lagu dhameystiray iyadoo nabad la yahay ayaa la tagay burcadde iyadoo la dagaalamay lama tagintee iyadoo heshiis la yahay burcad la tagay deedna duqeydii darifyada iyo duqeydii beeshan dhexe guurtida constitutionalka ahayd ayaa is arkay doo heshiis baa la gaadhay toddoba qodob bay gaadheen toddobadii qodob baa markaa loo gudbiyey magaalada central committee magaalada qolay dhexe SNM iyaguna way sharciyeeyeen deedna saas loogu dhawaaqay goon istaagana goorma markaa golaha guurta la balaadhiyay oo lagu daray muxuu ahay qoladii galbeedka iyo bariga golaha guurtida officially يعني شرعيا وحاو نقضي محو هاي هيئة دستورية وح نقضي
shirkii boorama dabadii charterkii amba axdigii boorama ayaa lagu sheegay in uu noqdo guurtidu ay noqoto hay-ad ka mid ah hay'adaha dawladda ay noqoto qayb ka mid ah baarlamaanka marka baarlamaan waxaa la isku yidhahdaa aqalka wakiilada iyo aqalka guurta la isku yidhahdaa dadku inta badan waxay u yaqaanaa baarlamaanka aqalka la yaqaanaa baarlamaan wax weeyaan waa aqalka labada aqal weeyaan baarlamaan isku darkooga baarlamaan la yidhaha halkana guurti baa la yidhaha halkana waxaa la representatives aqalka wakiilada iyo aqalka odayaasha ay kala noqonayaan marka la isku darana waa baarlamaan marka officially si official ah loo institutionalize gareeyay hay'ad looga dhigay dawliya waa shirkii boorama dabeed intii ka horeysay shirarkii nabadda ee magaranaysa dagaaladii ka dhacay berbera waxa guurtii story hadiye darifyadu sidee wax isugu yimaaneen arxukum isugu yimaaneenoo de nabadeyntii iyagaa sameeyey oo Hargeysa oo la nabadeeyay baa shirka boorama la tagay markii sheekh laga yimiday dadka qaar baa waxa la yaabaan marka la yiraahdo Hargeysa la isku talaabeyn wala yaabaan koos way dhasheen amba may joogin badalka Hargeysa la isku talaabeyn maalin ma ka sheekay maalin khilaafaadka halkan darsi siinayay oo laan lecture siinayay maxadkan khilaafaadka oo kalaaskayga ah ayaan ka sheekay Hargeysa isagoo kala xidhnayd masa gabar baa ay u tiri ma Hargeysa kala xidhnayd san ku Hargeysa kala xidhnayd oo kaariyoona raashinka la isku weedaarsanayay meesha qaydarka la ilaahay ka hooseysa dukaanadii hindidu gali jireen ee jirda Xuseen hoos marka loo dhaafaalka meelkaas oo ku oli jireen taala ku oli jirtay halka hoosteeda ayaa raashinka baabuur gadax leeyahay barbarana ma tagayn saylaana ma tagayn anaga nabadnida sagaashan iyo labadii September baahayd markii Sheekh Muuse wafti wato galbeedka yimaadeen marka kula yaabeen dad markaa tirada Hargeysa kala xidhnayd kula yaabeen Hargeysa kala xidhnayd Hargeysa dadaal baa loo soo galay nabadeeda iskama imanin beelaha kale ee aan ahayn beesha dhaxana door laxaad lay ku lahaayeen nabadeyntii isu soo jiidkii iyo khilaafaadkii iyo dagaaladii dhex yimid beesha dhaxe waxay ka qaateen doorka ugu weyn haddayna taasi dhicinna sida xamarun baa bug bacda la soo hayn lahaa qoladaasi hawiyuu markay isleynayeen qolada Puntland umay gurmanina maalinba wax la qaxweynayeen qaar maalna calimahaday la qaxweynayeen maalna wax la qaxweynayeen aydiid laakiin de beelahan darafyada delamay qaxweynine way dhexdhexaadiyeen way heshiisiyeen maamulkii suurtagelintiisa iyo dhismihiisina qaybta weyn bay ka qaateen 1999 bishii May wax lagu dhawaaqay in Soomaaliland gooni u soo baxdo midnimada Soomaaliya ka soo baxdo bal ka sheekay waqtiga burco iyo sidoo dhacay sidii la isku yimid sidoo odayaashu wada hadleen iyo qaabkii lagu heshiiyay in 2 sanadood uu hogaamiyo ururka SNM horta waxa weyn iyadoo heshiis la yahay ayaa shirka la tagay markaa beel waliba ay kansatay ergo waxa garadkoogii tuqaydoodii oo soo tashaday oo wax isweydiiyay مثلا galbeedka anagu odayaasha u tala midaysan bay ka tageen boorama ka tageen arrin midaysan ay ka tageen wax la yeelayo oo xisaabtano waxaan dawladda Soomaaliya loo oran jiray meesha u dambeysay ee caalan Soomaaliyeed ka taagnaa soo boorama maan ugu dambeynaa hadda dhacay ya ciidankiisa jooga Sayla hubkii Djibouti ku wareejeen kuwii kale xagan jooga oo kuwii Itoobiya la galay okay marka arrinka muxuu noqday ma ninka Kismaayo jooga in kala heshiiyay inaga beeshan dhexe ma ninka Kismaayo jooga deyn heshiisiinaya maya xaqiiqadan wajahno waa in la heshiiyaa dan la heshiinayna waa in siyaasadda laga heshiiyaa tan siyaasadda laga heshiiyo dadku isku dan noqon dagaaladu way jirayaan dadkana wax lagu soo dagaal geliyo la yiri qoybaynu gooni istaagaynu sameynana beelihii darafyadu way naga hor imanayaan siyaasiyiintu saasay lahaantee anagu waxaan shacbigan la dannahay shacbigu hadduu janno galaan aan la galno haddii cadaabta galaan aan la galno iyagaan la dannahay laakiin siyaasiga iyo ujeedadiisa fulin mayno ra'yi saalaxa oo xisaabsan oo 7 qodob ku salaysnaa
يعني ما شاء الله تقنا أنو وكتلنا أنو أنا جي غير هي كتلنا ده وكتلنا وده شو حنا نريد كل حاجة صوت لسانه ما أنت أنا كتلنا وحنا لون قاعدة الرأي بالسلبة اللي تجي ماشي بيلا كمان ساسو كلام بي كل دواين إذن الدقيدي باش ده كونستيوشن جورت ده الشيخ إبراهيم الحكومة أيها إنفايد جرايسي طبعا عليه كلا شن أشياء وده هذلين إذن مركز اللي جو كاري إن دولة مدو قوية دبلو سعودية وقاري إن معمول كسيستم الله قيب سما إن أسلمت ما دام كونستيوشن كذا وقوية للدستور كذا حديد لك الله قالوا إن لبصنا حكمان يدنا إن لبصنا الله سيء مركا الحكم كذا أولاً إن وحيد مقرن سنوات دي لسيد الدجيو قضبا عين كاسة مركا تقول هي لها مركا دم فريستي أنت هاد واحد عاوني شعبك ودوني وهي شعبك يا مركا بالحقيقة تندي حقيقة وحوي الصوماليين حريننا وذاك بهذه الجوجة أول كيس اللي قالنا إن كيس ودقالك قال يسعودي من أي صومالان حرينا سياد بركيرينا ما عندي واحد بقول قلي الله شيء يا الله شيء دولة المدي اللي إحنا كينا قالوا نطلع صرنا قرينا مركب كلام مريان that's why ما أنت أرنك والشعب قوي هيويان عد كستو اسكت إذا أنا يدو ميرسا أنا وسورو بينين يا مركب تاسا مركب أنا قلنا إحنا ده شعب كان سود النهاي شعبي يعني سود النهاي شعبي أديان سياسة اللي مذوبيننا تتقالوا دس مستعجيان مركا أرهم بالسلبة اللي تجي ساسا الله وضح لي مركي لو وضح لنا قوانا دي اللي صوص صارينا دي واحد لو قد فيه وهاي هي أدي institution كي مركا جري أسلم طها مدح دي يلو قد فيه تقول هي ده وفريستي سنتر لكم تيجي بمركا قوامية وإنسديته ممكن مي أي نقطة مالنتي للتاجي علنكا يقول نسيتاجا ساسيدي كودرتين اسلم لفتي ضحى إلى هذا ضد قرح إلى هذا أمير دمين إني لسه نقطان من دماء إن مدحبنا السمالان والسياسيين تقارب توني إن الصومالي يمحي أي سيدي هاته لكن سمحي ساعة هذا الوقت بسيط كراسته ميجنا وقت يا اسلم لفتي دين كوكلا قيمتين هذا رنتاس هذا الموحي هو صد الدنيا ذا كجرا سوى ضد لا يمدي ماشى وحين هذا قف كجرا وقال كذا وين تاسي رماسي لكن واحد الضوض هو صوف بحي ما يجرين ده إما كمان قارسوه إني كمان جوان حمر قارك إن اللي جوه وما يسمى جري صوما يا الانترنال فيلينج جا واحد كجرا نموجي هالكن لابط هذا واحد كجرا إلى هم طالع عن كرا لكن هذا الرهان يضوض هان يعقل هان اللي سو بندقينين ده واحد سوى نقول يوم الشكي يوم الأول ويان ما فهمت ويجي الثاني كو قيب سنين طبعا كو قيب سنين وكان ركبتي تجيس هذا الكوس كما يمنون مركي عيديد لو تجي يلا شراكوبي هي مركي إلا حتى قار نجمد هي جوان ما هو فيلين كيس كم بدر يمضو وحون سكي مدة معها وحجري ويان لكن وواحد أنا عن شعبي اللي يبين كريم ويان إذا كستابة درك ها قبته شعبي اللي جماعة يبين كريو جماعة يبين كريو مركا ودريمو هوسه oo la oran karo marka dambe waxay dhaliyeen khilaafaadkii iyo isku warimaadkii beeshan dhexe iyaga sabab u ahaa la oran karaa waxa jiray koob saas kimikii doorashada ay dhacday kadib la doortay Cabdiraxmaan oo Cali Cabdiraxmaan Tuur markii la doortay waxa dhacday dagaal sokeeye oo ka dhacay beeshii dhexe ee islaamta u badnayd sidoo uga qayb qaadatay waqtigaas kala guurtay ahaan de golo guurto Soomaaliland oo dhisna ma jirin sidaan hore kugu soo sheegay shirka boorama kama horreeynin laakiin waxa jiray de guurtidii beeshan dhexe constitutionalka ahayd iyo guurtidii darafeed way jireen markii horta berbera waxa ka horreeyay dagaalka la ilaa 6 cisho ee February dhacay 1992 ee Burca ka dhacay kaasa ka horreeyay marka beeshii لبهاته ومحمود علي شره قامين أيوه هي نوصي والرئيسي
أنا أقول بورما كترنا الشيخ موسى إنه قامني الله من حريسته لأن هالكاسان صوت تغني برعو لبدي بيلو ده برعو وانا بطحيني مركا مركا واحد وزير كداخلي قاها سليمان محمود آدن وزير كداخلي قاها waxaa la socdo kale ninkii dhiman jiraan oo xariistay la oran jiray Saciid la oran jiray isna wasiir ahaa labada bilood kale ay ka soo kala jeedeen muddaan joognay waan heshiisiinay wixii dhacay dee waxaan heshiisku kolkay dagaalo noocaasi dhacaan haddaanay dadka ka soo gu'in heshiisku in dadku wada hadal وأنا تذكر واحد عايز كده فيني يجو وأنا تقيدوا محايا لاني أورنين ما أنت نول بينو أرهمنا مسي وحينو كتبة تقنا يا خلطنا يا صحنا محايا قد انتي محاد انتي حساب تنكاسي مقاري كراني لما تكسي لما قاري كرو وحنو سو صارناي لما قدي يا نسو صارنا ولا مرنا قلب الأسبوع حريي وحيكو لبا شيء ku oodnaa halka raashinka laga siinay daaqadaha deedna waxa la yidhi ku heshiis keena heshiis bay keenantay heshiis ay keenan rag waxa ka mid ahaa imika Awil Xuseen oo golaha guurta ka mid ah ragii buu ka mid ahaa kada faafaahin si doonaysan waad waxa jiray laakiin muhiimadu waxa weeye heshiisku dadka uu ka yimiday laakiin waxa lagu dhexdhexaadiyay inay heshiiyaan waxay ku soo heshiiyeen waa lala marag baa looga noqday idna saasaan nabadii lagu xidhay dagaalkii dima joogsana barbaru soo wareegay barbaru waa kii muddo dheer ka socday aad baa loogu reeday dagaal adag buu ahaa dagaalkii difaacid gareeyeen kula Hargeysa isku gudbi weyday weeyaan Hargeysa isku gudbi weyday inkastoo Hargeysa dagaal ka dhicin haddana uu saameeyay admaad garan sababtiga أدو سامي حب سامي كل كان قرمت فيه الرئي واحد سوف دي رأوا ضرب سوف دي سبتمبر صدق لا تنكيدي 1992 ينسقال إن كجرنا من قلبات الشيخ موسى الله نهارسته وجامية سلطان الشيخ موسى جامع جودات وحنوني من نبول هالكن قرمت نبضات يبغى يجوك في الصومال لان يعني من نبولي كده بيرسلوا مركز عشر بوكا صباحي لبيه طبعا كأبريل لا ليه طبعا كأبريل 1992 يا شيء وهي كم إذا هيدين قرمت لوصة ما يدقال خبر برا يا جنديزة كم إذا هيدو لقوا أمي ساسا لقوا سو قرمتي ساسا لقوا حكالي ساسا نبضي بربران قرمني سيس فاير كي بربرا ديدين الكي بربرا قالن وكلن كان نبض أيه صورة قليه هرتا marka warayso labadii dhinac ama waxa kulanka nabadda labadii dhinac ee siyaasiyiinta oo dhinaca dawladda 16 nin ahaa dhinaca kalena caaradkan 15 ahaa oo dhinaca dawladda uu hogaaminayay Allah u naxariistay Sheekh Yusuf Sheekh Ali Gurey wasiirkii arrimaha dibadda dawladda Cabdiraxmaan Tuur dhinacan kalena uu hogaaminayay madaxweynaha hadda jira أحمد محمود وقامين يوشين طبعا إلى هي طبعا كاس أيام مدة رودور بلوض هالكن كود هذا يوزردا رما جدوك جورتي مكا قبل كفردي هو القدوش يمدة كود هذا قد بيس لجارين قد بدأ لجارين با لو جد بيه إنه يدقيد عيسى موسى صوص يحان مركب بربرة قالين ويسود ديدين يوسود ديدين بالله كلنا أنا قمركها أنا قبورهم كنا منه قان كل يرينا يلا كلنا ولي ويسود ديدين هل لو قدولو لين على قوة النقطة أنا قاعد نمركب بالإرجال نصية ما دام نقولها بريونس إرجيسة كوارجناي يجينا بنسوا أرجنو تيدنا ونسود إرجيسة نحن أرجين نود ديبا مدة مدهل ليني ونود ديبن تيدنا واحد كعبنا يوم إرجيسني تبي واحد كعبنا يوم بنسدي لوتش كذا هيدا عقل قال كهيدا ودقناي يا يعني دقنا ودكتة بربرة دكتة هانو ندي إيربورت لا يعني ندي إيربورت بربرة ونالك كايد إيربورت بربرة دكتة بربرة هامها بربرة طريقة بربرة محايقة أين كان الدولة ذاك مسؤولة يقولوا الدولة وحوار كيم بدي الدولة مقناص يقصد دوشيو خيري وركين
مثلا دي ما كلا دوانية إيربوردا غين وراين إيربورد كرجيسي خبر بردواس كمد تكذا أنا وراين أو تكذا سيلا أيو طلع صغيرة خبر بردواس تسيم تقول ده كود مسؤول على ورق تدي ها ده قار لوقا دقيا سيد بيد هشيس كلا وصيح هو شنتي أكتوبر 1992 أيها الكريمة جود على وصيحي ونيجي بيجي مادين مرخونا دولان لو قاعدة دونيا بلاش عند حين الدولان كو قاعدو ودين عكوذا نقول لي مرخزان ما يخالط أنا قبلنا سوا عرقنا هو قولي سنو نبضي بانكين إذن الشيخ بان نبضي لبضا بيرودنا لو ده دجيي وهي الشيخ قدم بينا دوات اللامبا قاعدة شركي بورما كان تجنينا هرجيزة ولا نبديي طريقة نوحدنا هالكني بلغ عصمة لدا بلغ وريجي كسر لغ وريجي طريقة وحدنا طريقة نجا صفرناي خلينا نبدأ نصوص سمعنا محابيس تبرع كل وريجني برع كسواد لأنه ضياشو الشيخ بكسواد لأن بربري كسواد لأن طريقة صفرين الكا سانو دبتا نكو مرني دغ وينو عيدان كو هايستا الكا كاريال كو هايستا طريقة صفرناي كوي كلا نكون نو برخدله طريقة سو قلبيان طريقة ساسان كو صفرناي هرجيسنا صدح بقوليو كنتم هرجوغياشي ciidamada ah iyo duqeydoodii iyo beerta xorriyadda ku dhaarinay una ciidan walba reer walba ciidankiisa inta nidaam loo helayaa meelaha dhigto dariiqa laga qaado suuqa laga qaado iyo duurka dadka la baaranayay magaalada jaadka laga gurinayay iduu nabad yar oo jirto ma timaadeen nabadu siday ku timiday nabada adkayd ma ay waxa weeyaan ilaahay baa dadka sulansiiyay alxamdulillah laakiin dee lagu faraadkeedo si kordhiyay u baahan tahay caruurta loo dhigo oo duruus laga dhigo oo weerarnimada loo gudbiyo da'da yar si looga leexdo in wixii oo kale bari ku yimaadaan way 1993kii waxa marti galiyay Boorame shirweyne la isku imaanayo waana shirka soo baxay aasaaska Soomaaliland ee hay'ad dawladnimo waqtiga wax lagu doortay madaxweyne Cigaal bal qaabkii caasimadu dhacday shirku intuu socday waa sidaad u xalisay khilaafaadkii intuu shirku socday taana faahfaahin naga sii horta shirka waxa weeyaan shirarkan deewaad la maqlaawne shirka horta ergadu 150 bay ahayd 150 kan ergay la keenay ma ahayd dad badan oo magaalada deejimide baa jira goobjooga iyo wixii magaalada deganaa 2,000 kama yareyn wadadkaasi de guriye kareysteen aanal beerkooyin ku jira dadkaasi waxay wada talada shirka ayay wax ku lahaayeen دي ولا يسورسنيي ولا يستوسينيي ولا يستلماميي arrimaha hadii dibadda lagu soo jilcinayay waxa weeyaan 150 kan ergay waxay ahaan dad la soo doortay oo wakiilnimadii wata ma maqasheen wax la yiraahdo Mareykanka electoral college wax la yiraahdo electoral college waxa weeye states kan Mareykanka way kala cod badan yihiin marka waxa lagu kala fawsaa wax weeye maaha codka exactly codka muwaadiniintu bixisa maaha Mareykanka inta state ee lagu kala roonaado ay electoral college vote la yiraahdo la qaataa مثلا California 50 bay leedahay wata ugu 50 bay leedahay Florida ku xigta saasay u kala cod badan yihiin إذا عود كاسر سوقية مركزات استدية لو معنا لها يكون جوليزته لكن عود كده كل جيعة جوليزته هو كل سوقها جاي إلكترال كولج كاسر لقى قاضية إلكترال كولج كاسر كان يدرس كان حنبار صناعين إرجوين كني إرجع والبر إذا صادرتي وكسر شرطي سومال ذو مكشرة كمان لو قبنا يه سومال لامبا قبيل كل شرطين بمقلانو ما لهم بلغ ورسلا نيروبي ما لسه لقى ورسنجري كسرتهم بالإسكان ورسنجري ورنجري كاسيو كسردا كاسيو كسردا وقوي وايساق كاسينا وكذا برسوا كسر كاسوا دولبات نص قبطة هذا يدرس كل كيهين سامين بينقول يلا لنسوما تذكر كبورمي تدرس سامين لهاين أول صوت دورته ونقول سيء عقل كيسي وحكرت كيسي عي صوت رتين ودبنا باشي ولا هاي جودنا عي صوت صحيح ذي تفساسي كوي مادة مركا إرجوينك حلقة صوت شريبة يمدي مركا ماشي يمدي وهو تاي كالسوني إنه أصو عرميو
ummadda wakiilka ka yahay inuu maslaxadda guud iyo danta guud ee Soomaaliland ka soo arrimiyo in wixii halka lagu gaaray maslaxadana oo qaybtiisa ka ahaado isagoo mas'uuliyad dadkiisa saasoo shir ku qabsoomay madaxweynihii markaa joogay Cabdiraxmaan Axmed Cali Allah u naxariistee oo yimiday shirka uu ka hadlay kolkuu arkay de shirkii de hore ma eg xukuumadda waliba de way istaad raacaysaa way soo daad raaciyeen haddii ay lihiin helayaan dee lihiin amba kartay ay helayaan de way soo hortaagi lahaayeen amba ay awooday ku maamulaan dee waxa ay ku hortaagaan ma jirin way ma jirin dee meesha qura la micinsanayeen odayaashaas ahayd markaa dee hadda kale la micinsanayay because waxa weeye markii shirka sheekh la tagay balan lagu kala tagay balantiina de siyaasiyiintii may fulin odayaashu waxay anagu nabadaan u tagaynaa idinkuna waa idinkaa wada fadhiye dee maamulkan amba inoo adkeeya ama mid heshiis ku tihiin inoo sameeya ama kii hore inoo adkeeya oo ha kala kicinaya maamul inoo dhisa oo inoo adkeeya wax dee yani mutawafiq ilaa khilaafaad baa dadka kala kixiyey iska dhoofeen dee iska dhoofeen siyaasiyiintii madaxweynuhuna dhoofay ragii kalena iska dhoofeen dibadda markaa wuxuu yidhi Allah u naxariistay wuxuu yidhi 150 argay wuxuu ka sheekeeyay dalka wixii dhibaato soo maray sida wax soo dhaceen sida uu meesha uga tag waayay sida uu jeclaa in aan kursiga bannaynay loogu yimaado sida wax waliba ugu soo mareen meesha siduna u oran way tollaay u oranin ee magarasa uu ku dadaalay inaan isaga dartii aan la isku leeynin ayuu aad uga sheekeeyey idna wuxuu yidhi waxaan waafaqsanahay buu yidhi 150 ergey inaan u dhiibo aniguna idinku biiriye kalsoonidaydii inaad u arrimisaan ya mustaqbalkii ummadan in wixii ka soo baxana anu hogaansanahay ayaan aniguna idinku biiriyey buu yidhi wax kale uu ka hadlay baahida loo qabo buu yidhi walahani waa in golo dastuuriya uu noqdaa buu yidhi oo markay siyaasiyiintu isku dhacaan kala joojiyo bariga u qabta ya hadii jeer siyaasiyiintu wadama badan inuu kursigu ma muuqda ma arkaan waxa kursiga ka sokeeyay wax ka dambeeyay wax dhici doonay ma arkaan laakiin odagu de kursi ma jeclaysanayee in dadkiisu nabadkooda joogaan buu jecel yahay oo farqiga u dhaxeeya waa inta weeyaan marka saasuu talada isaguna ku dhiibay waa la gudagalay hawlihii waxa lagu wareysiyay wax weeyaan in nabadii la sii xoojiyo marka ahdiga nabadgelyada la yiraahdo la sameeyay kadibna waxa la sameeyay ahdigii maay qaranka maasha jaartarka la yiraahdo ahdiga nabadgelyada 28 qodob ka koobnaa nabadgelyadu qodob kamid wuxuu haday in dawladda sharci ku dhalatay in la taageero in cidii gardarra ka hortimaaday beelahan ka hortimaaday beelaha kale ka hortagaan in wixii dalka ku soo duula oo arinta markan dambe lagu qabtay dalka markii dagaalku ka dhacay Hargeysa 1994 kii October 15keegii arintii airport ka dhacday ya markay nagu dhacday arintan beelaha kale iyo kullu la isku tagay Soomaaliland lagu qabtay lagu xakameeyay beeluhu si wada jirka ciidanka u keeneen ya loo caabiyay ahdigaas la hirgelinay ahdigaas heshiiskaas la hirgelinay hadii nabadkaas uu yeelay ilaa maanta uu jira ahdigii charterkii baa ku xigay charterka waxa uu yaradkaa markii la diyaarinayay qaabka dawladda rag baa soo jeediyay in madaxweynayaashu wareeg noqdaan oo 5 madaxweyne la sameeyo 6 bilood ba madax xukumo rotational presentation wax la yiraahdo dadka qaar waxa keenay beelaha ku kala sareysnaa hadana qaarna waxa keeneen madaxweyne iyo ra'iisul wasaare qaar madaxweyne iyo ku xigeen arba waxbay keeneen parliamentary reform qaarin habka baarlamaanka in laga dhigo marka arrinkaasina waradii martida loo ahaa reer Boorama iyaguba waxay wateen madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wateen hadana inay dhexdhexaadiyeen labadii dhinac kale inay meel isku keeyaan idoo ku guuleysan waayeen dibadna iyaga ka tanaasulay fikradoodii idna waxay ku beereen ra'yigooda waxay ku beeriyeen olkii watay madaxweynaha iyo ku xigeenka idna halkaas ay majority-gi u noqday markaa
taasa markaa lagu codeeyey arrintaas siyaasiyiinta loo diray inay odayaashu waxay yiraahdeen bal qaabkii dawladdu noqon lahayd qoladiina siyaasiyiintaay iyo maamul yaqaankow keena muddo bil ku dhow bay isla maqnaayeen waxba waan keeni kari weynay bay yiraahdeen ku heshiin kari weynay waa nin walba meel buu iska eegayaa shantan way isqorsheeyeen qolada shanta wadataa way isqorsheeyeen ya وصدح بيلا بيشان ده حكي يماده إيو متكي يماده قد برسيه متكي يماده لنا عن صول يلا سوق قرشي ولا سوق قرشي بقى يا وركب سوق قرشي يو سيطة شيء بقى يا حاجة مدهوني رئيس الوزراء ركب سوق قرشي الرجل سوق قرشي يلا يدي بالكسو شيء قاب يحبوا كين كروان وما أنت حاجة عبدي واحد شركة بورما حدي عنيقو أنا حاجة عبدي ما أنت أنا لا ظهر لي دور ثم دحوين نما وموضي كراعي كل نبأ أنا دامي الهوي نمكها يمكن قابك إنه كينو وعيه وحسك بقى يابوري كان وحي يقرين الله إنه وحنا دون إنه يقروا يقصي بقى يابوري يا أرني زيجي يا مجري وحسك بقى يقول أنا لا يقروا وحنا أرني إنه يقروا يقصي يا كبقنا يابوري يعني وحي دي بس يقولي ورالانتا سيدي بس يقولي halkii baad markaa taas ugu adkayd ta kale waxay ahayd arintu waxay deesh waxa soo taagay rajidi waxa soo qortay madaxweynihii hore Abdurrahman ee soo qortay oo naxariiste Umar Arta soo qortay isaguna soo qortay kale Ahmed Mahal Adin Leela igal afartaas soo qortay candidate-ki إذن دوين أطلق على شنتي بشي بالله فريستي مي شنتي إذن أرورنا دي مركل لسوي من ذلك تلو دي الجروبي ذويني هوري يجي 5 دقيقة هلا يسيو 5 دقيقة ما يعني بكرفون 5 دقيقة هلا يسيو كل هورانا إني قد بديان أو إسبيتش دي ولا دي دو يقولها إرجوين كي بديدي ويلي سبيتش وحلا لا ولا قد يسني كانديديدا ما جرتو سبيتش لا قد يستدي حسن قبن دونا يا حسن مو قبن دونا يا حسن عين كاس عين تدني وحولي حلا يسيولي شنطخ وضياشي واسقاقين وضياشي وبشبش ليين الله نحرستني صلى الشيخ موسى جيرك هي مالنتا ساسو وضياشي محيالنا وكلا حد قار ودي بيدان قار يا ودي ما يقول إرجوين كان ويدين يا ولي إرجال ماشى فردان ويدين يا إن أنسيه 5 دقيقة مدحويني عبد الرحمن أحمد علي مصي يا 5 دقيقة إن الدنيا يا إن وحنا ينعده ما يبالي دي يا سيدي بقى يا ده كان إرجوين كبودي دين بوري يا ويحدي يا هذا هذا ولص إلى ضد ماشى لو كنا نعاقيو الشيخ موسى سيدين إرجوين كم بها وكلام ما ديدان دي وحصوه تاني ولا شيء كرني دي كرسوني ده النسي ونقدر نقدم بوجه دي أنت هو ذا شو فهم يعني ماشى عريم الله يسقو قورنا يا ولا يسلا فهم يا أنت أنا ونوما فان زنين إذا سيدي بنقع عروضين سجاري لاتين إرجي راعي أنت كلام الباقي في حلنا وترسلنا بقولي كل لاتين إرجي نص هاري كورم كمر كنا نور نادي عد كي بانقادني إيجو مقام بالليلي دي مركا سيلو كلوري إذن واحد من يهلين يجو سيدي بالله دور في مركا قالوا حيالي سجاشني سجال عد عبد الرحمن على حيالي بقولي يلا بعد سجاد اللي ما ترتمين أينا نكيل ولدي عبد حسن بوني الله ونحرسته أيام الحوينا كويجينك سكسو تجسنا وكتنازلي عبد الرحمن مباولقه وتاجنا بقولي يلا بعد بو هلاي قالنا سقالي سقاشن بو هلاي maalintii 5 bishii May bay ahayd kolka waxay galeen odayaashu waxa uu yaala wax weyn adag marka in laga erga galada Abdurrahman madaxweynihii horte oo niyad samide xilka ku wareejide sagii beeshiisa in laga erga galada